aniga waxaan xasuustaa asxaabtaydii aan guriga wada deganayn ama aan deriska ahayn in aniga xasuus ku jira la sheego la igu dadkaas way geeriyooday baddaanay ku geeriyooday ilaahay bay qorino 19 jeer badda galay ilaahay bay qorin naftaydu halkaas ay ku baxday 12 kaaba naga baxtay anagoo biyihii Greek bartankiisii taagan oo wax yar noo harsiinay oo meeshii aan ku xidhanaynay la leeyahay waka jabalkii lagu xidhanay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوداش إذا نشعلنا هيو ميلك الصوت شوكتان كسور وادا برنامج كارا وانكو رئيسون إنو إسلام مركزين ومرتين وغيهاي ويلدن يرا ولغو مقعابو علي عثمان علي كانمدا دليرا دا كنول مقالة هرقيسي عاصمة دا سوماليلان إن علي waxau mar hore isagu u baxay ama u anbabaxay dalka Turkiga isagoo u aaday waxbarasho balse hayaankiisa Turkigu intaas kuma yeekaanin waxa uu isku dayay intuu waxbarashadiisa ka tagay inuu sii dhaafo oo u talaabo qaaradda Yurub 19 jeer oo isku day uu ku doonayay inuu ku galo dalka Yurub oo uu badda galay ayaa ku guul daraystay inuu u gudbo waxaana 19 kaasi jeerba laga soo qabtay badda sidoo kale Cali 19 jeer ayaa uu xabsi galay intii uu ku sugnaa dalka Turkiga Cali intaas uu kaliya kuma yeekaanin waxa uu isaga talaabay dalal ay kamid yihiin Turkiga Greega iyo sidoo kale jasiiradda lagu magacaabo Qobrus balse intii uu dalalkaasi marayay waxa uu la kulmay dhibaatooyin badan waraysigeena ayaynu daawadayaal toos u gudagali doonaa waxaanaad kaga bogan doontaan weydiimo salka ku haya waxyaabahaasi aanu kor ku soo sheegnay ugu horeyn Cali ku soo dhow MMTV assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baa idin salaamaya dhamaantiin shaqaalooyinaha telefishinka MMTV adigana waa lagu salaamaya Maxamed aad baan ugu dhawahay wad maasantay mar kale soo dhow baa ku leeyahay Cali ugu horeyn calow waxaad ka mid ah dhalinyarada Hargeysa ee waxbarashada u doontay dalka Turkiga bal ugu horeyn hayaankaagii safarkaaga halkan aad kaga dhaqaaqday ee Turkiga tagtay waxbarashada sugtay maxaa iska bedelay runtii anigu waxaan ahaa horta arday halkan Hargeysa wax ka barta markii muddadii aan wax baranayeen Hargeysa wax ka baranayay dhamaatay waxaan go'aan ku gaaray inaan jaamacadda ku soo diyaariyo dalka Turkiga oo aan information oo ka helay qolo travel agency-yadan yaryar ee fiisayaasha soo saarta ayaa igu dhaliyay inaan dalka Turkiga tago oo macluumaad fiican si iguna qanciyay inaan fiisaha dalbadon passport soo samaysto anoo markii hore passport haysan waxa dhacday passportkii baan leeymi waxaan la tagay travel agency-gii aan macluumaadka ka helay markii hore wixii igu yiri fiisaha waxbarashada dalka Turkiga waxaan kugu soo saarayaa lacag $2,000 marka Turki tagtana waxbarashadaadu boqolkiiba 57 waa scholarship boqolkiiba 25 ka soo hara ayaad iska bixinaysaa adigu family-gii waan ku noqday hawshii waan ku qanciyay iyaguna way golo qanceen kabacdi hawshii waan guda galay fiisihii waxay u qaadatay inaan sugo muddo 4 bilood inkastoo marka hore fiisaha Turkiga lagu heli jiray bil ama 3 toddobaad haddii ugu yaraato 2 toddobaad lagu heli jiray adiga 4 bilood bay ku qaadatay aniga 4 bilood bay ugu qaadatay oo markii hore wax kasta igu adkaadeen moogtay 4 bilood baan sugay maalintii ay soo baxdayna isla maalintii aan ticket goostan Hargeysa ka baxay markii fiisaha la soo siiyay waxa la igu yiri 20 arday kale ay safaaraddu soo diraysaa marka 20 ka arday raacdaan ay suga waxaan ku anigu ma sugay waan tagayay passportkayga siiya passportkii siiyay ticket baan soo goostay maalintii fiisaha la siiyay 3 shaqo ka bacdi waan ka baxay Hargeysa sidii waan ku tagay Turki anigoon cidna ka garanayn Turki oo af Turki aan garanaynin oo luqadii Soomaaliga oo kaliya garanaya luqadda Ingiriiska ee international kana doo xoogaa jabsanay kabacdi markaan Turki ka degay waxa la xiriirsiiyay qolo jaamacadda isku xidhnaayeen oo admission-ka naga soo saartay jaamacadda qoladii baa airport-ka timi way soo kaxeeyeen hotel bi seexiyeen subaxnimadii xafiiskoodii keeneen waxay ugu yiraahdeen ku soo dhawo dalka Turkiga haddaad u baahan tahay SIM card dalka Turkiga oo ku furayna ku soo dhawo anigu aad u faraxsan oo aan hore u arag wadan caalamo oo migrants si fiican loo dhisayo wadan dhisana oo migrants oo ku faraxsan ayaa lay soo furayeen SIM card marka lay furay waxay igu yiraahdeen Istanbul baad hadda ku sugan tahay
gobolkaaga jaamacaddu kaa soo aqbashay waxaa la yidhahdaa Tokad Merkezi ayaa la yidhahdaa jaamacaddaadana waxaa la yidhahdaa Gazi Osman Basha University dad aad u badan oo ay garanayaan dadkii aan halkaa wada joognay ama dadkii aan Turkiga isku aragnay way garanayaan si fiican baan u garanaya marka Istanbul iyo Tokad wax fara badan isku jiraan waxaan ku waayay sidaan ku tagi karaa halka ama tigid kalaan goosanaya anoo dalka Turkiga dhex jooga mise bas baan raacay waxay ugu dhaan tigid nood goosan kartaa bas noo raaci kartaa waxaan ku baska raaci maadaama aan cusub ahay magaaladan dhisana caalamka aan sii daadaawado meeshii ayaan tigidkii baska la jaray anigii markaa waxaa wada soconaa wiil kale iyo laba gabdhood oo Soomaaliya oo iyagu ay wadeen oo aan isla soconay kabacdi halkii baan safarkii wada galnay Tokad sayd bin ugu dheeraatay xafiiska intaan ka bixin waxa dhacday xafiiskan qoladan soo dhaweysay ee jaamacadda noo direysay halka noo diyaarsan meel aan seexanay iyo waxaan cunaba waxaan u qanacsay inaan bishii bixino $110 oo ah meeshaan seexan saddexdii waqtina laba waqti aad helaysaan waqtina aad idinku ismaareynaysan kabacdi qoladii meesha aan ku kulannay ee safarkuna walaaliyay aan iskaranayn ayaan tashanay inaan kamid ah dabaynankii oo halkan aan magaciisa ka sheegay laakiin garanay isagu ayaa yuri waxa jira gobol Yozgat la dhaho oo ka soo sokeeya Tokad oo lacagta ku sheegay meel lacag yar lagu degi karo anigoo jeebkaygii og oo nintee aad u raaxla jacayl badan ah ayaa waxa dhacday ninkii aanu ku raacay reegiis waxaan ku niyo gobolka inagii gobolka ayay naga horeeyay xiro qolo asxaabna ay naga horeys wallahi adigu taariikheedu fara badan halka waan ka soo maray markii aan ku cusbaa qoladii waan raacay gobolkii Yozgat bantii waxay ahayd waqti qabow ah ay ahayd kabacdi coronavirus noo jiray oo sabtidii hadda bando baa la gali jiray marka waxaan ku beeganay Hargeysa waxa ka baxay Khamiis waxaan galay Turkiga habeen Jimco soo galay maalinnimadii Jimcaha ayaan ka baxay hadana Istanbul waxaan habeenkii sabtida u sii socday gobolkii Yozgat habeenkii xiligiisii dambe adigu afartii habeenimo meelahaas ayaa waxaan gaaray gobolkii ay inankan saaxiibkan igu qanciyeen isbaran aniga iyo isaga iyo laba gabdhood oo kale oo iyaguna reer Hargeysa ah meeshii baan ka wada baxnay gobolkii baan galnay hotel baan tagnay hotelkan subaxii lagama soo bixi karo oo cunto lama doonan karo maadaama bando lagu jiro sharcina ma haysid qof cusub baad baasaboorkaaga wadada waad ku mari kartaa maadaama cusub tahay laakiin bando baa jiro oo lagu qabanay ee hotelkii adigu wax yar oo mobilkan la soo baxnay Google Translate ayaanu galnay waxa dhacday ninkii waan xasuustaa hotelkii waxa la oranayay hadiya ayaa la oranayay hadiya hotel marka hotelkaasi ninkii ka shaqeynayay oday yar oo iska duq ahaa odaygaasan Google-ha u gali jirnay waxaan doonno Google Translate ayaan weydiin kabacdi isaguna fahmi jiray cuntada isaga noo keenay labadii maalmood marka halka ku qaadanay sabti iyo xad maalinnimadii Isniinta waxaan noo yimid inankan igu qanciyayna soo raaco asxaabtiisii oo halkan kaga soo horeysay isagana taariikh fara badan meeshan ka soo siiyay ama ka sabti fiican oo ku qanci karo inamadii baan kaxeeyay waxay dhayn jaamacaddii way furan tahay maadaama cusub tihiin waxaad u baahan tihiin sharci aad wadanka ku joogtaan inaad heshaan sharcigii wadankan ku joogay waxa ka horeeyay inaan guri kareysto waxa ka horeeyay inaan jaamacaddii soo diiwaan galiyo warqadii diiwaan galinta soo qaato gurigii waan share gareynaa anagii iyo inankan iyo labada gabdhood wixii aniga igu soo hagaaga hadii $300 tahay afartaydaas loo qaybinay wixii aniga igu soo hagaaga waan ku qasbanay inaan bixiyo hadhowna aan adresska gurigan deganahay aan soo qaato oo ku xareysto sharcigayga si adresskayga gurigayga loogu keeno gurigii waan soo kareysanay waxa ku xigtay jaamacaddii waan soo diiwaan galinay lacag yar baan nagu soo diiwaan galiyeen oo luqadda aan ku dhigananay oo departmentiga waxa ka horeeyay inaad luqadda wadanka aad barato adoo jaamacadda soo diiwaan galinay insha Allah waqti fiican ay noo qabteen inaan ku soo diyaar garowno 20 bisha oo kala aad koodii bisha oo kala saqornay 20 bisha ugu dambeyn yaa leedii wayn idinkoo bugaagtiinan aan idin siinay iyo laabtooyo sita noo kale okay meeshii baanu ka soo baxnay maalintii 20 bisha ahayd ayaan jaamacaddii tagnay 8 subaxnimo galnay waxa ka soo baxnay 3 galabnimo oo qadada meesha lagu dhaxnaa jaamacadda sidii aanu macaansanay jaamacadda ayaa waxa dhacday in jaamacaddii markii luqadii la dhameyn doono
ama aan ku dhawaanay inaan dhammayno horta anigu aad baan u jeclaaday luuqadda maalin baan jiri jir waan la qabsaday af turkiga waan la qabsaday si fiican anoo la haysta ayaa waxa dhacday jaamacaddii faculty soo dhejisay waan arkay kabacdi waxaan maqlay sharcigan aad ku haysato gobolka Yozgat ma aha gobolkii jaamacaddii ku soo aqbashay jaamacaddii ku soo aqbashay waxa la yiraahdaa Gazi Osman Bash jaamacaddan hadda aan ku jiraan luuqadda ka dhiganay waxa la yiraahdaa Bosok University ma aha sharcigan koowaad markuu ka dhaco jaamacaddaadii kuma laaban kartid waayo admission ka haysto ka dhacaya halkeed ku maqnayd baa lagu oranay markaa waxaan go'aansaday maadaama dhibtaasi igu soo socoto sanadka bacdi inaan gobolkii Tokad markii hore aniga soo aqbalay fiisiisana ku soo helay aan tago halkii baan tagay halkii waan xoogaa muddo joogay aniga asxaabtii aan markaa wada deganay ka soo baxay ayaan gobolkii tagay adiga asxaab kale isbaranay runtii wallahi taariikh aad u fara badan oo maankayga markasta ku soo noqnoqota aniga hadda Hargeysa jooga oo mararka qaar anoo hurdaan xasuustaa mararka qaar ayaa soo maray adu luuqadii markaan soo afjareen soo dhameeyay ayaa hadalkaygu wuxuu ku socdaa wixii igu kalifay ama sababtii aan uga tagay wadankayga ee waxbarashada ayaan ku wadaa marka waxa dhacday in jaamacadda ay tiraado department-kii wad bilaabaysaan marka luuqadii dhamayseen oo markaan luuqadii adigu gabaabsi ku dhowdahay waa lagu sii ogeysiinayaa si aad u diyaar garowdo marka dhameeysid hadaa lagu sheegay kiis bay kugu noqonaysaa laakiin adigoo dhameynaya oo ma garanaysaa ama buugii diyaarinaya luuqadda ayaa lagu sii sheegay $2,000 3 bilood ka bacdi halaydi ka helo department-kii ayaa idin bilaamaya qof kasta wixii u soo baxay ayaa bilaamay wallahi aniga aad u faraxsan ayaa waxaan maqlay jaamacado kale oo ka fiican marka saddexaad ayaan maqlay jaamacado ka fiican oo ka lacag jaban horta family-gii baan la soo wadaagay aabbo wuxuu igu yiri jaamacadda markii hore tagtay 75% waxay ku siiyeen scholarship 25% ka soo hadhada adigu iska bixinaysa marka jaamacadda aad dhiganaysaa sanadkii ma $4,000 bah taas oo abi weydiiyay waxaan ku dhaabaa aniga sanadkii waxay igu yiraahdeen qoladan fiiso isu saariyay xiriir la lahaa jaamacadda anigu jaamacadda xiriir ma wada sameyn oo qoladan baad lacag iga qaaday oo ii shaqeynaysa waxay igu yiraahdeen qoladan sanadkii $2,000 baad ku dhiganaysaa sanadkii 2,000 wax ka yar ayaad ku dhiganaysaa bay igu yiraahdeen maan moodayay in 2,000 de sanadkii lagu dhiganayo marka aabo anigu ma ogi aabo wuxuu igu yiri war saxan soo si jaamacaddana ka wardo okay baan ku dhaabay sidii baan aabo iska ogaanay maalintii dambe ayaa waxa dhacday niyadeyda waxa ku soo dhacday dhalinyaro aad u fara badan oo la hadal hayn jiray markaan jaamacadda ka soo baxnay inta baska soo saaranahay maalmaha kubadda ciyaarana maalmaha gym-ka tagayno waxa la hadal hayn jiray dad inta yimaadeen u gudbay Yurub oo halka ka tagay adigu hawshii sidaan u wadnay waxa dhacday inaan aniguna taariibkii aan jilbaha u laabto oo niyadda gashto oo cajalad baa dadka la laqsiyaaba la yidhi dhalinyaradu waxay tiraahdaa qofkan waxaanu hore soo maran haddii loo sheego qofkan waxaan waa loo soo sheegay cajalad buu soo laqay waa la yidhaahdaa cajaladii waa la laqsiyay aniga taariibka ahayd waxaanan aad ugu qancay qofkii oo kale waan taariibay Yurub baan galaya hadda tolan noloshayda aniga dibariyo xaafadii ma soo dibarayso oo aniga hadda Turki markaan joogay de shaqo kuma haynin Turki family-gayga ay soo diray lacagta aan bisha ku noolaanay guriga baska jaamacadda xataa ku raacay baska jaamacaddu lacag buu ahaa bilaash ma ahayn gurigan deganay lacag buu wax kasta lacag bixay oo wax bilaash ma jirin marka adigu halkaas ka bilaabantay marka aad niyadda gashatay canjalada aad sheegayso aad liqday tahriib aad wax ka xidhatay sidee ku bilaabantay waayaha tahriibku wallahi waxa dhacday nin aanan garanayn anigu hadda magaciisa iyo meel uu jooga horta nin wanaagsan buu ahaa halkan ma ka salaamaya ninka waxa dhacday lambarkiisa la soo diray lambarkiisu lambar Turkiyo sawirka u saarana muu hayn sawirkiisa sawirka loo oo background oo kale ayaa u saarna waxa dhacday ninkii ayaan la hadlay waxaan u sheegay inaan taariibahay oo soo socdo gobolka laga taariibo gobolkan aan ka taariibo gobolka laga taariibaya waxa isku jira masaafo ahaan haddii aan qiyaaso 16 saacadood ilaa 18 saacadood baska ah bas marka raacso marka taariibaysidna diyaarad lama raaca moogto bacba ku galaysa oo wad shakiyaysa inta badan
bas baa la raacaa waanan usoo socdaa baan kuri meesha ee information iga sii si aan ugu qanco ninkii waa in fara badan ii waramay markaan ku qancay hadalkiisa ayaan go'aansaday inaan gobolkan ka tago oon gobolkii aan u taariibay laga taariibay aan tago maxaad lacag haysaa markaa lacag waxaan hayaa horta wixii aan ku safriyay waan hayaa wixii aan ku tagay gobolkaas waan haystaa oo waxaas waxay ahayd mar aan bishii ay dhamaatay oo lacagtii family soo gaadhay lacagtii billaah ida biilkayga ahayd ay soo gaadhay ay ahayd marka waxa dhacday lacagtaas markii soo gaadhay waan haystaa horta already waxaan ku safro laakiin waxaan haynin wixii aan doonta ku raacay doontu waa lacag magafaha lacag baa siinaysaa marka ma hayo lacagtaas laakiin sida family uga dhaadhicisaa waa igu qufulan meeshii markaad tagtid baana dad family ay ku qancin kartaa oo meeshii adigoon tegin aanad arkin dee inay doonyuhu kala qaalisan yihiin family-gaagii lacag uma sheegi kartid waanan tahriibaya horta taa kuma odhan kartid aabbaha iyo hooyada allah u naxariisto hooyadii hadda way dhimatay anigoo turki joogaana dhimatay hooyaday aabbo kuma qancin kartid waan tahriibaya markaa waxaan sameeyey aabbaan ku dhaaba jaamacaddii $1,000 ay naga rabtaa oo been baan u sheegay aabba $1,000 jaamacadda ii soo dira aabba 7 kabacdi ii soo dira lacagtii halkii baan ka bilaabay safarkayga lacagtaydii waxaan dhigtay bangi la dhaho dahabshiil bangigeena dahabshiil oo qeybtiisa kale turkiga ku taalla ayaan dhigtay lacagtaydii waxaana lagu taariibiyay lacag $800 waqtigaas 2020 bay ahayd 2020 800 baa lagu taariibiyay 200 ee kalena sahay baan ka dhigtay oo energy baa loo baahan yahay dhar baa loo baahan yahay tube-kan la gashada loo baahan yahay qalabkii badda loo baahan yahay already waxaad u baahan tahay lacag haddii aad gareega gasho aad taxi ku raacdo kaamka ku geeya waayo way fara badan tahay inta la lugeynaya marka adigu halkii bay ka bilaamatay safarkaygii koowaad maalinkaan galay family-gaygu ma sheegin laakiin inaan aad u saaxiibnahay oon iska dhownahay markastana aan iska warhayno oo family-gana ka warhaya anigana iga warhayn jiray oo ilaa dee in badan aan asxaab ahayn ninkii baan ku ii soo ducay saaxiib maanta halkaas intigaya family-gana ha u sheegin gabadh lambar baan ku siinaya lambarkaas waa gabadhaan kala joogta oo iyaduna insha Allah waxaan rajeynaya muuqaalkan daawanayso gabadhaas ayaan lambarkeeda ku siinaya gabadhaasaa damiin iga noqotay lacagtii aan daabshil dhiganay oo marka taariibi si lacagta dhex dhiganayso waxa loo baahan yahay damiin haddii aad baddaa wax ku noqoto maanta ama lagu xidho damiin lacagta qaada ay loo baahan yahay gabadh aan markaa diyaaradda isku baranay oo reer Muqdisho ahayd aan halkan ka salaamayay iyo seegeedaba oo hadda Yurub jooga ayaa waxa dhacday gabadhaas damiin iga noqotay marka gabadhaasi aad baan u salaamay gabadhaas damiin iga noqotay aniga wadu sheegtad ku jira gabadhaas lambarkeeda ku siinaya gabadha la hadal gabadhaas lacagteedii damiin ka tahay oo haddaan wax noqdo lacagteeda ku soo dirtay gabadhaas ina soo ducee gabadhan waxa loo joogtay gabadha saxaabihiin gabadha saxaabkii waxay igu tiray walaal anagu waan taariibiyay aan israacnay caawa anaga nala joog oo aan karaan ugu de guri kuma haysanay tookaad baan guri ku haystay marka aan karo waxaan u soo maray de safarkayga wadada ayaa aan karaa waana aan karaa hadana ka soo gooshtaa hadana Ismir magaalada Ismir la dhahay laga taariibo ee Turkiga ku taala tagta waana magaalada saddexaad ugu weyn dalka Turkiga marka waxay tiri walaal caawa nala joog ana berito lacag lay soo diray hayga tigin waxaan ku walaal aad baad u mahadsan tahay anigu waan go'aansaday inaan tago inaan joogana ma jecli marka walaal waan tagaya marka lacagtaydii maan dhigin dahabshil waxa dhacday gobolkii baan anigu tagay keligii anigoo Ismir ayaan tagay aan karaan ka tagay Ismir baan tagay anigoo aanay cidnay ila socon ama safarkayga aanay cidnay ugu wahalinayn ayaan tigidhkii baska goostay $10 baan ku goostay oo lacagta Turkiga ah Ismir baan tagay Ismir markaan soo tagay waxa dhacday in hotel aan kiraysto maadaama dad asxaabana ku siiyaysan laakiin Soomaali ay buuxtahay ay ka buuxdo Soomaali aad fara badan inaad inta nolosha la qabsanayso aad hotel tagto hotelkii markaan tagay nin odayo Cali la dhaho ayaa iga soo baxay odayga Cali wuxuu igu dhahay adeer wad cusub tahay haadeeroon cusub hadan imi magaaladana ma kala garanay inaan taariibana waa rabaadeen marka yaa ku kaxaynaya ayaa afkiisa ku soo dhacday waxaan ku uri hebel bay kaxaynay waana ninkii ugu qanciyay inaan taariibada ka soo wareystay taariibka iyo lacagteeda iyo
meelaha la maro ee xogtiisii ninkii markaan u sheegay odaygii wuxuu igu yidhi adeeray wiil aad u da-yar baa tahay aniguna waan kaa weyna waan ku dhali karaya adeeray aniga laftigayga taariibay igu yidhi lacagtaydana kuma aaminay ninkaas lacagtaada hadda ma wato ha adeer waan wataa waatan jeebadda igu jirta lacagtaydii aan xawaalada kasoo qaataa jeebadda igu jirta odaygaas wuxuu igu yidhi adeeray ciyaal baa kaa weya waa may ciyaal kaama weyaan nin dhalinyarana waa tahay waxaa samaysaa isla imika ku noqo meesha baska bus stationka oo takaar baa la idhaahdaa af turki laakiin bus stationka meesha basaska laga raaco ku noqo dib aan karo ugu noqo dahabshiil soo dhiga lacagta adoo warqadii aad ku dhigatay sita adeeray igu soo noqo shandadaadana halkan kaga tag anaa ku haynay haddii aanad lacagtii xataa baska aanad sidanin anaa kaa bixinay saas igu yiri dee waxaan is idhi nin kaa weyn maxay ahayd mahamahdii nin kaa weyn kaagu baas weyn baa ninka weyn ku baas ka weyn mahmahdaas ayaan de xasuusto waxaan is ninkan kaa weyn waa kan kula taliyay talidiisa dhaaf waayo gudbad ku dhici doonta hadii kale ankaraan ku noqday anigoon cidna ka garanin ankara inantii baan dib u qaraacay inantii baan kuwan kusoo noqday magaaladii dahabshiil baan lacagteeda dhiganay inantii waxay tiri inantii kalena maanta loo soo diro waa diyaare dahabshiil aan idin raaco dahabshiil baan tagnay anagoon islahayn de damiin baa laydinkaga baahan aniga iyo inantaan la socotay iyo inantan taariibka doonaysa iyaduna ayaan ahayn saddexdeedaas inantii aan taariibka doonaynay wadanka joogaysay ayaa damiin naga noqotay labadeedii baskii baan isla raacnay sidii baan u tagnay magaaladii laga taariibay ismir dib ugu laabanay labadeedii lacagtii dhiganay gurigii waxaan ku noqday hoteelkii aan odayga ku kulannay ayaan ku noqday halkiibaan safarkayguna ka bilaabay imise casho kadib markaa ayaad badda gasheen oo aad safarkiina toos ugu gasheen safarkii taariifka wallaahi waxaan xasuustaa anigoo maalin sabtii soo galay magaaladii laga taariibay ismir in axadda iyo sabtida aanay shaqaynayn wax xafiisiyaayo wax ma garanaysaa gaadhiyaala oo dee kala gooshaya magaalooyin kala tegay maalinnimadii Isniinta intaan hotel ku jirnayna by mobile ayaa lagula xiriiriyay qolada mukhalasiinta ee kaxaynaysa adigina inta wada joogtaa waan wada joognay qolka hotelkii degantahay qolbi ka degantahay qol waxaan deganay odaygii baan anna isla deganay iyadana qol gaaran ayaan dejisay marka adigu qolo isaguna uu nala xiriiriyay maadaama naga soo horreeyay qolo mukhalasiin oo nala xiriiriyay qoladii xidhan Isniinta ayaa safar jira idinkuna waa cusubtiin nasiibkeena tijaabiye gooheen socod Isniinta ma baxdeen waxaan u imanay soo taariib ma ahayn waxaan u imanay taariib buu ahaa labadeedii anagoo ilaahay tala saaranano oo le tawakkal cala allah kafaa billahi wakiil ayaan safarkii galnay tiibiyaan soo iibsanay safarkii baan galnay kabo waaweyn baan xidhanay waa dhaxan koodh iyo waxbaan xidhanay koodhkana haddaan xidhanay wallahi taariikh weyn buu leeyahay koodhkan safarkii ugu horreeyay ku galay taariibay adigu safarkii baan galnay doontii baa la yidhi shanta nin ugu xoog weyn leh soo kaxeeya ha buufiyaan waayo doonta laguma buufinay haantan gaadhiga marka la soo saarayo waa khataro adigu marka la taariibayo waa la dhuuntaa marka waxaa la soobiyaa baaladan kubadda lagu buufiyo bamka ay 3 midh la soobiyaa 3 midh baa 3 hareerood laga geliya oo doonta lagu buufiyaa marka 3 nin ugu xoog weyn soo kaxeeya baa dadkii waan anu ku jiray doonta raacay buufistay yaki xoogahay wallahi billahi tallah taariikhdu iyada isqoraysa moogtay oo maankayga way ka qooxayaan waxyaalo fara badan oo halkaa ku arkay oo aad aniga xusuus igu leh inteed ku qaadatina bahashii doontii laba saacadood ayaan buufinay doontii markaan buufinan taagnay looxaantii baa haddana la gelinay haddana waxaa lagu xidhayay matoorkii sidii baa badda noo geliyay safarkayga ugu horreeyay Turki iyo badda Greega u dhaxaysa aan galo safarkaas waa halkii markad maraysiin baa markaa isbedeleen runtii wallahi markii adigu aan muddo hal saaca aan badda ku jirnay biyihii Turkiga ka dhamaanay biyaha Turkiga aad buu fududeen laakiin biyaha Greego aad buu culus yihiin intay garanaysaan way garanaysaa oo way ka warhayaan anigu nin iska bulshaawiyan hay'ad aad u fara badan ay ku xiran yihiin oo intii safarkayga koowaad oo warbixin fara badan ma ahayn laakiin safarkayga ka bacdi dad aad u fara badan baan ugu warbixinayaa siin jiray oo jira soo socda iyo kale taariiba marka biyo Turkiga aad ka dhamaateen ku Greega ugu dubteen
kuwii Greek aad bay u cuslaayeen biyaha Greek motorka noo saaran waxaan horta dad 30 qof gaadhay ayaan motorka doonta ku xidhan doomaha motoraha lagu xidhan way kala duwan 30 20 25 25 bay kala leeyihiin marka 30 haddii kugu xidhan yahay doontu istaagi mayso biyaha kastoo ka hor imaado ma istaagayso oo way dheereynaysaa muddo yarna waad ku tegaysaa adigoon dhib arag adigoon ma garanaysaa laakiin anagoo 30 ayaa ninka mukhallaskii way khiyaamo badan yihiin oo dadkan waxba iskama soo qaadan kartoon yihiin bay iskaga soo qaadaan baa u malaynay in dadkan bilaadan inay yihiin iskama soo qaadan inta badan 15 motor ah ay noo saareen 15 awoodeyda ka badan ba inta badan mukhallasiinta caadiga ah ee ma garanaysaa aan wadanka u dhalanin Turkiga lacag aad u fara badan bay ku bixiyaan si dadkan ay u guuleystaan oo motor fiican bay u saaraan laakiin Turkiga xil iskama saaraan laakiin Turkida iyo qolada Kurdida la dhaho iyo qaar Syrian la dhaho iskama saaraan awood fara badan maxaa waaye xigay in caliyow 15 daqiiqo motorkii 15 ka ahaa ayaa noo baqtiyay markii shidaalkaygu noo buuxa weli mu dhamaanay laakiin motorkii 15 ka ahaa naga baqtiyay anagoo biyihii Greek bartankiisii taagan oo wax yar noo harsan yihiin oo meeshii aan ku xidhanaynay la leeyahay waka jabalkii lagu xidhanay adigu bil nasiib anagoo halkii rafanayna oo baalkii kolba la jiiday oo la cabaynayo oo la istaaray ayay askarta Greek iyagoo aad moodeen badda u eegyihiin oo askar dhar badda u eeg doon badda u eeg wata oo xataa toosh ku xidhnay bahalkood oo markii ku soo istaagaan kugu shiday ayaa liidka noo soo raacay buur badda marka buur badda dhexdeeda ku taal ay ka soo dawreeyeen kabacdi waxaan aragnay iyagoo naag taagan oo toosh de khashaafad oo kala weyn lisku ifi oo bay markii wacnigiisi anigu horta waan farxayo safarkii ugu horeeyay waan farxay waxaan isiri oo lagu badbaadinayo inta qoladan Yurubna waa adiga saa ku kale alxamdulillah waan hoosta ka hayaa marka waxa dhacday wallahi runtii qoladii motorkii iyo gaaskii xarigii xiriirinay ay markii goosteen qoladii askartii Greek ahay ilaalada xeebaha ee Greek wixii ba goosteen gaaskii hadana soo qaateen way qaateen anagii xarkii noo soo tuureen marka anaguna waxaan isleeyahay xarkaan waxa la idinku soo duuraya waa badbaado xarkii waan isku qabsanay anaga nacasnimadayda xarkii markaan qabsanay way jiideen xajistan yiraahdo si noo jiideen doonteedu saas u socotay oo waxa u socotay galbeed oo kale oo Yurub galbeed buu naga xigay kabacdi sanbay noo soo jeediyeen bari bay noo soo jeediyeen meeshaan ka imanay Turkiga ah bay nagu soo jeediyeen markaas aanu naxay oo ma garanaysaa aan naxay markii igu horeysay baa taariikh fara badan oo badda ah oo igu soo maro tii ugu darneed oo kale aan xasuustay inta badan marka hadda aan xasuusto calaw waqtigeenu ku dheeraaday ogeed inaga soo koobayna markii xagga la idin soo jiiday xagga ka jooda la idin soo jiiday xaggeed geeyay biyihii Turkiga markayna keeneen ayaa xarkii goosteen motorkii iyo gaaskii iyo wixiina dawaa kuwa kala jarayba gaaskiina qaatay xarigii markii kala jareen biyihii Turkiga anaga ku dhex jirnay ayaguna baxsadeen waayo askarta Greek iyo askarta Turkiga isma arki karaan ismana arki karaan haddii saarkaan iyagoo muhaajiriin dib u celinaya ee isxabadaynaya marka halkii naga baxsadeen anagoo marka haabano mawjudino noo wada dhinacii Turkiga askarta Turkiga ilaalada xeebaha dalka Turkiga ee lagu magacaabo Sahil Gökçek ayana badbaadisay xabsigii ugu horeeyay Turkiga maalinkaas uu bilaabay markii ay leedin badbaadiyay toos ma xabsiga leedin geeyay wallahi marka lagu badbaadiyay horta waxa lagu xidhanayaa saldhiga badda ku dhex yaala ee Sahil Gökçek leedahay ilaaladan Turkiga xabsiga badda ku dhex yaala ayaa lagu wareejinay haddii aad qoydeen dhar baa lagu qaybinay haddii qoyaan aanu soo gaarin sidina la isku xareynay waxaan la siinayaa cunto bas baynii manay weyn baskaas xabsiga weyn deegaynay ee magaalada ku dhex yaala marka intaad xidhneed walaal calaw markay ugu horeysay waa markii la soo mustaafiriyay Hargeysa anigu Hargeysa ka maqnaa muddo Hargeysa toos lagu keenay Hargeysa safarkii ugu horeeyay aniga iga soo mustaafiriyay oo tarxiil igu dhacay marka waa Turkey from Hargeysa Turkey from Somalia Muqdisho hadana Hargeysa Muqdisho to Hargeysa hadana marka markii ugu horeysay waxa dhacday in ma garanaysaa la iga soo dejiyo Muqdisho safarkeedu waa lagu xidhay muddo kadib dub baa lagu soo tarxiilay Muqdisho timi Hargeysa timi mar hadda Hargeysa aad timi
ma mar dambe kugu dhalatay haddana turki dib ugu noqoto turki 20 cishan ku xidhnaa aniguna arday baan ahaa turki ka haysta iqaamad ama dalku jooga dalka turkiga waxbarashada ama dalku joogba oo wadankayga ku iman karo aan ku laaban karo oo tigid kaliya tiiga xigo ayaan haystay muddo 20 cishan xidhnaan xabsiga ku jiray waxa la iga soo dejiyay magaalada Muqdisho aniguna cidna ka garanay dadkii xabsigan ku wada jirnay baan garanay oo laakiin magaalada ma garanay afar maalin baan la joogay dadkii xabsigan ku wada jirnay dhalinyaradii Soomaalida saaxiibteen xabsiga ku soo saaxiibteen si wanaagsan baa la soo dhaweeyay gabadha halkan aan ka salaamay gabadhii damiinkayga noqotay ayaa igu xidhay familygooda oo reer Muqdisho aad gabadhaas familgoodii baa si fiican ii soo dhaweeyay halkan baan ka salaamay aniguna cidna ka garanay Muqdisho ayaa halka iga soo dhaweeyeen marka Hargeysa nimid familygii waan yimid hooyo iyo aabo iyo walaaladay ma ka warhayn taariibkayga horta markaan xamar yimid aaban soo geysiyeen ku aabo anigoo sharcigaygii kaga tagay guriga ayaa askari qabteen wadada dhexdeeda laakiin ma oran waan taariib kuma oran oo waxaan silaa kan xin ma Hargeysa marka timi sidaad ugu noqotay Hargeysa markaan soo yimid horta familygii baan la midoobay mar kale iyagoo muddo 20 cisho ah iraadinay oo marka lagu xiro war la iskama helo oo adigoo la soo hadlo adigoo xabsi ku dhex jira mooyaan aniguna waxaan u diiday anigoo xabsi ku jira saan la soo hadlay waxaan u diiday inuu ogaado inaan taariib ayaan u diiday inuu la soo hadlay marka Hargeysa markaan soo yimid waxa dhacday inaan familygii ka dhaadhiciyo dhibta igu dhacday si hoos ayaan ugu sheegay aabana markii dambe aan Hargeysa ka bixi doonay sharcigayga guriga kaga tagay la keenay guriga Turkiga aan kaga tagay marka taariib si ma qaadan si sharcigaaga wad ka tagaysa markii la keenay aaba ka dhaadhicin ku dhaaba tigid baan goosanay Turkiga ku noqonay sharcigayga waan haysta way go ahead bi guraha oo ku soo ducaynay sidii ma ku tagay mar labaad baan Turkiga ku noqday mar labaad baan taariibka hadana galay hada mar adoo soo waaya arkay oo naftaadu ay halis gashay oo jeel galay oo lagu mustaafiriyo dalkii aad wax ka barisay xataa laga soo mustaafiri maxaa ku kalifay inaad markaa hadana taariibto wallahi niyo horta runtii waxay u kalifay anigu horta markii hore Hargeysa waxaan ka hayn jiray nin saxafiyan ahaan jiray oo wariye ah oo reporter markii dambe hadana wax isku bedelay cameraman oo kamarad baan anigu iska u soo iibsaday oo television ma lahayn kamaradaas waxaan igu dhaliyay dhalinyaro aad u fara badan oo saxaab ah inuu meel aan wax ka wada baran ee telefishinada qaar adeerkii way geeyay goor jir aniguna dee ma lahayn adeer saxaafada ama ka garanaya saxaafada ma lahayn kamarad baan iska soo iibsaday halkii waan ka shaqeyn jiray markii aan kamaradii ku dul daalay aan wadankii ka tagay kabacdi Turki markaan tagayna taariibkaas ay bilaabmay taariibkii markii la iga soo mustaafiriyay markii koowaad hadana aan markii labaad ku noqday waxa dhacday inaan taariib baan la qabsadayo maskaxdeedina waxa ka taariibsay Yurub tagaysa oo berito ka maalinta familygina soo beelinaysa way markii labaad sidee kugu soo ragashay taariibto ma isla magaaladii Ismir baa hadana ku noqotay gobolkii Ismir baan hadana ku noqday oo taariib labaad baan ka galay waa la soo qabtay waa la xidhay waa la sii daayay badii baa hadana sidoo kale la iga soo qabtay nasiibkayga adigu muddo 19 jeer ayaa saaxiib la xidhay oo baddaas laga soo qabanay markii ugu dambeysay hadda Hargeysa kula joogan studio MMTV oo kula fadhiya Hargeysa magaalada Hargeysa markii labaad la soo tarxiilay dalka laga soo mustaafiriyo taariikh hadana la igu qabto marka adoo taariikh fara badan waa maray 12 jeer badan Ali 19 jeer badbada gashay oo naftaada halis gashay laba jeerna halkii aad dalkii aad ka tagtay baa lagu dub lagu soo tarxiilay intii aad taariibka ku jirtay maxaad oran kartaa dhibaatooyinkaas ugu xuslaa oo ugu xanuun badnaa oo nafsiyan adigu aad martay wallahi dhibaatooyinkii anigu aan nafsiyan maray waxaan xabsigan galay qoladan ku wada xidhanay qolooyin argagixisada la yiraahdo oo adduunka oo dhan laga raadiyo oo qoladan ciidanka Mareykanka ku raadiyaan ayaa xabsiga lagu jiray markii aniga igu darnayd ma garanaysaa qalbigeygana taabatay aan aad u nacay taariib inaan faraha ka qaado waxa markii labaad ay Hargeysa la igu soo celin doono waxaan xabsiga ku jirnay waxaan ku jiray muddo 3 bilood ah oo 9 cisho u dhiganta ayaan ku jiray waxaan kula jiray qolo argagixisa oo Mareykanka ku raadiyo salay sheegay aniga qoladaasi xabsiga nagula jireen inta badan oo dagaal badnaayeen maalintii la soo diri doono wadanka waxa dhacday in qaybtii ku jireen la geeyay si aan uga soo dhaxbaxno dadka kale xidhan waayo wala isku dhaxidhnaa waxaan loo geeyay qoladii argagixisada ahayd meesha ku jireen
halkii anagoo ku jirnaa ayuu na soo dhaweyn jireen anagu isma odhan jirin dadkan baa argagixisa wadada aad qalbi fiican bay hayeen moogta oo dharka noo soo meeri jiray laakiin waan ka baqan jiray aniga qalbigii waan ka baqan jiray anigu iska ilaalin jiray wa ma geli jiray suuligii galaan suuli kale deedin jiray marka taas aniga igu dhib badnayd oo kugu naxay balay way marka laga tago badad gashay iyo 19 ka jeer xabsiga aad gashayba marar kala duwan marka lagu soo qabto lagu xidhay cali waxa jira safarro kale oo isku dayday oo mar aad Qubrus tagtay mar kale oo Greega tagtay bal marka iyaga siday kugu soo gashay Qubrus markii aniga la iga soo tarxiilay 2021kii Turkiga ee safarkii koowaad la soo tarxiilay laabtay Turkiga ku laabtay ayaa waxaan isiri dib ugu noqon badiye bal Qubrus hadana eeg Qubrus marka gabadh joogtay oo hadda Belgium keenay joogtay hadda jecel gabadhaas waxay soo dhameysay waraaqa xaasinimo oo ay wadankan Qubrus aan ku galay marka Turkiga Kibris boo yaqaanaan inaguna Qubrus baan u naqaana marka qaybna waa Turkiga baa maamulo qaybna Greek baa maamulo waa Greek labada qayboodna waa la iskala kala gooshaa oo legal border baa jira oo fiisa Shanghai lagu dhaafay marka adigu waraaqada xaasinimo ay soo dhameysay banaabuurka ah warqadii waan ku dhoofay Qubrus baan ka degay 10 cisho karantiil aan galay kabacdi hadana waxaan gudbay qaybtii Greek oo meel aan legal border aan maray markaan kaamkii tagay Greek ayaa waxaan arkay oday yaro ilmo yar wata odayga yaraabay igu adeer madax cusub tahay adeer waan cusubahay adeeray meeshan way iska dhib badan tahay aniguna 2 sano jooga adeeray ku sharcigaagu bisid yahay oo sharcigaagu shaqeynaya mad meeshan iskaga laabani oo Turkiga aad ka timid adeer mad ku laabani halkii baan shadadii ka soo jiitay iyadoon cidna la socon baan wadada 3 saacadood soo socday oo wax ka timid halkii Greek ka timid waxaan ka yimid meel kaam la yiraahdo Bunara oo ku yaala qaybta Greek ee Nicosia 3 saacadood muddo ah ayaan Nicosia ku soo gaaray askartii legal border ka fadhiday anigu ma garanayo wadadii aan ka soo galay aan legal border ka dib ugu ma noqon karo meesha legal border ka ayadoo isku soo qaadan waxa anigu Turki baan ka yimid meeshan ma garanayo waxay keenay taxi taariikhdiisa sheeg lambarkiisa sheeg sawirkiisa nooc ma aha ma garanayo aniga baasaboorkaygu wuxuu yaala lafkoosh baasaboorkayguna halkaas aad keenaysaa adigu markii ay afkaran waayeen qaybtii Turkiga ay soo tuuray ee Kibris ee Turkidu maamulis haddana askartii Turkiga ay qabatay sida halkan ugu soo dhaaftay sida halkan u martay maanaga hayno baasaboorkaaga sheeg baasaboorkaaga lambarkiisa waan sheeg waxa la yiri wuxuu sheegay baasaboorkaaga inaad ku sugan tahay qaybtan Turkiga oo nadu gudbin qaybtan oo qaybtan ba diyaarad ku soo gashay sida halkan intrigii aad halkan ku gashay mee intriyada wadda ku soo gasho mar hayna adigu waxay fahmeen taariibahay xabsi bay geeyeen xabsigii ugu horeeyay Soomaali lagu xidho qaybta Turkiga ee Qubrus ayaan anigu noqday xabsigaas Soomaali kuma jirin Nigerian iyo Luxembourg wadanka la yiraahdo iyaga baa qaar u dhashay ku jira adigu subaxnimadii waxa la geeyay maxkamadda 3 toddobaad baa lagu xukumay 3 toddobaad halkii waan ku dhameystay marka wax la ogaaday inaad arday tahay may waxa la ogaaday inaan taariibaha oo bilaa sharci ka gudbiyay xad 3 toddobaad markii dhamaaday migulan baasaboorkaaga kan wadankaaga aan kugu celin waxaan ku aniga baasaboorkayga iyo sharcigayga Turkiga arday Turkiga aanu marka qaybtan Kibris ee Turkiga maamulo iyo Turkiga caadiga way kala duwan marka gurigii baan u tilmaamay waxaan siiyay adreeska guriga waxa la soo qaaday baasaboorkii iyo sharcigii ciqaamadii aan dalka Turkiga joogay waxay igu dhahan Cali Cismaan Cali arday Turkiga tahay Turkiga baan kugu celinaa wadankaaga kugu celinaa ciqaamadaadu shaqeynaysa daan kara la iga soo dejiyay sidii qof caadi Caliyow 19 ka jeer aad gobolka Izmir ka baxday aad badda gashay aad jeclayd inaad Europe tawsi talaawdo kule dhalinyaro kala duwan bay israaciseen ma xasuutaa cid dhibaatooyin kale ay soo gaadhay sidoo kale ma xasuutaa cid gudubtay oo Europe gudubtay bal ma xasuusaha gudub celi wallahi horta maxamed walaal aad baa maasan tahay wallahi aad buu shaqeynaya waxa ka sheekeynaya xasuusada aniga gaar ahaan moogti oo u sheegay dhalinyarada Hargeysa ku sugan ama dhalinyarada doonaysa inay Turkiga tagaan ama waalidiinta doonayeen ubadkooda geeyaan Turki aniga waxaan xasuustaa asxaabteydii aan guriga wada deganeyn ama aan dariska ahayn in aniga xabsi ku jira la sheego leeyahay dadkaas way geeriyoodeen badana ku geeriyoodeen oo la iga sheekay xataa systemkii u geeriyoodeen iyo sidii u geeriyoonayeen ba la iga sheekay waan garanay Allah naxariisto maanta nin la yiraahdo Cabdirsaaq Cartan Allah naxariisto ninkaas saaxiiban aad waxaan Ankaran wada deganeyn
marka maanta uu dhintay geeridiisana xabsiga laygu dhex sheegay iyo 3 gabdhood oo kale oo diris ahayn oo toos u garanay oo hebel marka baday ku dhintay aniga ilaahay bay qorino 19 jeer oo badda galay ilaahay bay qorin naftaydu halkaas ay ku baxdo sababtay u kaliftayna naftayda anigoo nool oo xaafad family ka soo jeeda iyo kaliftayna taariibana shaqo la'aanta wadankan uga tagay un baahan oo wax kale iguma kalifin marka sababtaas aan oran karaa bacdo ugu dambeyn kulli dhalinyaro badan waxbarasho joogta ayaa Turkiga jooga iyaga laftooda bal waxbarashooda hab noocay wax u bartaan ma jiraan waxa la sheegay inay jiraan dhalinyaro doogii waxbarashada ka leexday bal waxyaabaha adigu aad ku soo aragtay ee suran karto waxa xaalado qaraar oo Turkiga ka jiraan oo dhalinyarada Soomaaliyeed haystaan bana la wadaag wallahi dad aad u fara badan baa jiro waalidiin fara badan oo ubadkooda markay halka geeyaan aan ka warhayn oo lacagtu u dira waxa jira dumar xataa magaranayay waxbarashan dhiganaa ilaahdaan oo guriga iska joogo waxa jira rag ilaahdo waxbarashan dhiganaa oo jaamacad baan dhiganaa lacagta noo soo dira lacagtiina bilwid iyo waxyaabo kale oo isticmaala ayaa jira markaa waxaan leeyahay waalidiinta ka taxadiraan oo ubadkooda hala xiriiraan xataa jaamacadda in calow saad sheegtay markaad halkan joogtay suxufi horaad ahayd in imka soo noqotay waxbarashada soo baabaday qorshahaagii ahaa inaad Yurub gasho soo dhamaa soo baabaa dalkaaga waddo ugu soo noqotay magaaladeeda ku soo noqotay maxaad jeceshay imka inaad qabato wallahi horta anigu wax kasta oo soo sameeyay wixii aan soo bartay maskaxdayda ku jiray ma nilaawin anigu aqoonteedina waan qaba waxbarashadii aan waqtiga iyo saxaafadii aan waqtiga ku jirina waan ku jiraa oo waan ogahay waxaan jecelahay haddii dee fursad ay soo baxaan inay warbaahintii dib ugu laabto dee insha Allah waad suxufigaaga noqoto insha Allah waa tahay daawadeeshayda aanu jecelnahay oo guud ahaanba intaa waxaanu ku soo afeeraynaa barnaamijkeennii gaarka ayaynu ku wareysanaynay Cali Cismaan Cali oo isagu 19 jeer oo isku daya sameeyay isla markaasina galay badda u dhaxaysa Turkiga iyo Greega balse isagu aan ku guuleysan allana aan qadarin inuu u talaabo dalalka Yurub sidoo kale Cali 19 jeer ayuu xabsi ku soo qaatay 2 jeer ayaa lagu soo celiyay dalkii uu ka tagay hadda ugu dambeyn waxa uu joogaa magaalada Hargeysa oo ku soo barbaaray waxbarashadiisa hoose dhexe sarena uu ku soo qaatay Cali aad baad mahadsantahay waan kaga mahad celinaa barnaamijkeena gaarka ah aad baad mahadsantahay inta ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ah waxaad kaga tagaynaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh